waxaan dawladda ku maartay marka ugu horeeyo ku amaanaya in isagii oo na soo galin ay bilaabeen inay bulshada u dhaqaaqaan ka wacyi geliyaan tilaabooyin wax ku oolan ay ku dhaqaaqeen waxaan bulshada u sheegi lahaa inaanay ahayn dhib iyo kala soo wado ay tahay dantooda inaan dan gaara dawladda ugu jirin ee mas'uuliyadda ay gudato kuwa ugu waaweyn ay tahay arrin bulsho ay tahay ani dawo ma leh xanuunkani talaal ma leh xanuunkani xoog kale ma leh dawladahaas waaweyn baa iska joojin kari lahaa waxa meeshan yaala qofku ku dhaco ee uu si xun ugu dhaco wuxuu u baahan yahay ICU waa mishino sababkan oxygen-ka siinaya xaggee bay yaalaan dalkeena meel dhifa ayaa laga heli karaa meeshaasna dirqi bay ku socotaa awoodu ma lihin marka inaan qofku ku dhaco oo sababkiisa fariisiyo aan wax u qabano in albaabadeeda iyo daaqadeeda xirato xanuunkani xanuun soo soconaya maaha xanuun waqti jiri kara maaha viruska oo dhan sida duriga weeye waqti kooban bay dalka haynayaan laakiin waqtiga koobnaa bay arrin murugo leh kaga tegi karaan dalka waxaan xukuumadda mar labaad ku bogaadinayaa tilaabooyinka inay xoojiyaan ha ogaadeen canshuur yar ee dayuurad laga qaaday canshuur yar ee markab laga qaaday canshuur yar ee laga qaaday gaari jaad ama ganacsado kale wada in aanay kaabi karin dhaawaca dhaqaale ee soo socda xukuumaddu marka maanta ha qaado tilaabooyinka adag daaqadaheena iyo aan soo xiran albaabadeena muddo yar bay waxaan u dhaafayaan muddada yar aan maaragtay isku tashano